asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa qaybtii labaad ee qisadii qoyskii Magstay kaasi oo ahaa qoys hal mar si kadis ah loo waayay. haddaba si aad u fahantay qisada fadlan u laaba muuqaalkankii ka horeeyay ama waxaad ka helaysaa linkigiisa dhanka description-ka. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe and like waa noo muhiim, waad mahadsan tahay. haddaba aynu sii wadna dhacdooyinka qisada. markana waxaa si buuxda u bilaabmay wejigii labaad ee baadhitaanada, iyadoo waraysiyo kala duwan lagu bilaabay eheladii qoyskii Magstay. sidoo kale waxaa la raadiyey in wax uun kamaradaha CCTV-ga ahi meelahaas ka dhowdahay. markana nasiib wanaag waxaa la helay kamaradii. kadib markii la baadhay wixii ay duubtay waxaa lagu arkay arrin keenay shaki weyn, kaasi oo noqday waddada keliya ee loo raacayo halkay ku dambeeyeen qoyskii Magstay. iyadoo 4tii bishii February goor habeenimo ah ay duubtay kamaradii gaadhigii qoysku iska lahaayeen, kaasi oo ka sii baxaya gurigii. markana waxaa diiradda la saaray in la helo gaadhigii. baadhitaano dheer kadib waxaa la helay gaadhigii, kaasi oo yaala goob baabuurta la dhigto oo u dhow xadka ay wadaagaan dalka Mexico iyo Maraykanka. sidoo kale eheladii qoyskii Magstay ayay ku noqotay qaadan waa in goobtaas laga helay gaadhigii qoyska. markana waxaa baadhitaano lagu bilaabay gaadhigii. dusha gaadhigu gebi ahaanba waxay u muuqatay mid caafimaad qabta, halka xagga dambe ee gaadhiga ay ku jireen waxyaabo waaweyn, kuwaasi oo ay ku dadnaayeen marooyin iyo boco. kadib waxyaabihii ayaa laga qaaday maryihii iyo bacihii dhakada kaga dadnaa, iyagoo noqday waxyaabo ay carruurtu ku ciyaarto iyo sidoo kale qaboojiyayaal ama talaagado. xagga hore ee gaadhiga ayaa u muuqday mid ay fadhiyeen waalidiintii, halkay xagga dambe ahaayeen beelal loogu talagalay carruurtu marka ay gelayaan safar dheer, taasi oo caddaynaysay in keliya ay gaadhiga saarnaayeen qoyskii. si kastaba waxaa la waayay wax caddayn dheeraad ah, taasi oo muujinaysa halkay ku dambeeyeen qoyskii Magstay. sidoo kale waxaa la xaqiijiyey inay u dhaxaysay muddo dhan 4 maalmood habeennimadii ay qoysku ka soo dhaqaaqeen gurigooda iyo markii goobta la dhigay gaadhiga, taasi oo noqotay arrin kale oo ka yaabisay baadhayaashii. halkee ayay joogeen muddadan dhan 4 maalmood, iyagoo ahaa dabcan kuwo ay la socdaan carruurtoodii, waxaana loo badiyey in ay galeen dalka Mexico sababtoo ah Joseph wuxuu halkaa u aadi jiray sababo ganacsi, inkasta oo la xaqiijiyey inaanu muddooyinkii dambe u safrin dhankaas. markana waxaa baadhitaano lagu sameeyey waxyaabihii ay duubeen kamaradihii ku xidhnaa dhanka laga gudbo ee xadka, waxaana laga helay qoys aad ugu eg qoyskii Magstay, kuwaas oo ay qabatay kamaradu iyagoo u sii gudbaya dhanka dalka Mexico. sidoo kale kombiyuutarkii ay qoysku iska lahaayeen ayaa laga ogaaday in ay Google-ka ka baadheen maxay carruurtu u baahan yihiin markay u safrayaan dalka Mexico, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan dalkaas. kadib waxaan u caddayma ah booliskii waxay iclaamiyeen in qoyskii galeen dalka Mexico, laakiin waxaa si adag uga soo horjeesaday eheladii qoyskii Magstay, iyagoo arrintaasna sabab uga dhigay in dal sida Mexico oo kale ay gudihiisa ka jiraan xaalado afduub, dil, dhac, daroogooyin, kooxo maafiya ah iyo dhammaan wax kasta oo laga cabsado. aanu marnaba Joseph u wadaynin qoyskiisii uu jeclaa. sidoo kale Joseph hooyadii ayaa shaki weyn ka muujisay muuqaalka dadkii ay kamaraduhu qabteen, iyadoo sheegtay in socodka qoyskani aanu gebi ahaanba u muuqan socodkii qoyskii Magstay. sidoo kale waxay xaqiijisay in mid ka mid ah wiilashii ay ayeeyda u ahayd uu lahaa timo dhaadheer, halka kuwan kale aanay gebi ahaanba sidaas u muuqan. dhab ahaantii qoyskani ma waxay galeen dalka Mexico mise waxaa jira qorshe kale, kaasi oo ay maleegtay maskax aad u dhagar badani. markana waxay bilaabeen booliskii baadhitaano ay ka samaynayaan gudaha dalka Mexico, dabcan iyagoo kaashanaya dhigooda dalkaasi, waxaana lagu dhajiyey sawirrada qoyska maqan dhammaan waddooyinka dalkaasi si ugu yaraan loo helo cid aqoonsata. muddo kadib baadhayaashii waxaa soo wacay mid ka mid ah mulkiilayaasha goob laga cunteeyo, taasi oo ku taala dalka Mexico, isagoo sheegay in qoyskani goor habeenimo ah ka cunteeyeen goobtiisa, waxaanu caddeeyey inay siteen sawir khariidada dalka Mexico ah, kaasi oo ay ku hilmaameen goobtii ay ku cunteynayeen. markana waxaa lagu codsaday inuu keeno goobaha baadhitaanada si looga baadho farihii qoyskii Magstay, laakiin nasiib darro dadkani ma noqon iyagii.
Sannadii 2013 ku dhawaad 3 sano maqnaashihii qoyska waxay booliskii xaqiijiyeen in aanay qoyskani rabitaankooda u qarsoomin ee ay jirto sabab ka dambaysa qarsoomidda qoyskii Magistay sababtoo ah waxay ahaayeen muwaadiniin Ameerikaan ah waxaanay sida saxda ahayd inay yimaadaan safaaradda goobta ay ku sugan yihiin waayo waxa ka dhacay baasaboorradii waxaanay ku qasbanaayeen inay cusboonaysiistaan sidoo kale lama isticmaalin lacagtoodii ugu jirtay bangiga taasi oo muujinaysa wax weyn oo ka khaldan arrinka qoyskan booliskii waxay ku fashilmeen inay caddeeyaan waxa ku dhacay qoyska keliyana waxay heleen xogo ka buuxiyey boqolaal boog kuwaasi oo haba yaraatee aan ka caawinahayn inay ogaadaan waxa ku dhacay qoyskii iyagoo gebi ahaanba u muuqday kuwa isdhiibay intaasi kadib maalinimadii 13 Noofembar sannadii 2013 wiil watay mooto oo marayay goob lama degaan ah ayaa si kadis ah ugu soo baxay goob ah xabaal wadareed taasi oo ay ka soo muuqdeen qaybo ka mid ah lafada kadib waxa uu ku wargeliyay booliskii waxa uu la kulmay markana waxa soo gaaray goobtii booliskii kuwaasi oo bilaabay inay ka soo faqaan qalfoofka dhulka waxaanay ka soo saareen 4 qalfoof kuwaas oo 2 ka mid ah ay ahaayeen caruur iyadoo baaritaana kadib la xaqiijiyay inay yihiin qoyskii la waayay ee Magistay hagaag markan waxa la og yahay waxa ku dhacay qoyskii laakiin haddana waxa jirtay su'aal aan weli laga jawaabin taasi oo ah waa ay dilaagan maskaxda badani kaasi oo sidan oo dhan u habaabiyay baaritaanadii markana kiiskii wuxuu ka yimid waayitaan qoys isagoo isku bedelay dilka 4 xubnood ee uu ka koobnaa qoysku waxaa jiray shakhsi aanu kaga soo hadalay bilowgii qisada kaasi oo magaciisu ahaa Charles Miret sidoo kale saaxiibo iyo shaqo wadaag ay ahaayeen Joseph ahaana shakhsigii ugu horeeyay ee soo sheegay in qoysku maqan yihiin bilowgii sanadii 2014 Charles Miret ayaa buug ka qoray qoyska kaasi oo uu sumcadii qoyska dhulka kula galay waxaana ka mid ahaa waxyaabihii uu ku soo bandhigay buugiisan in Joseph oo ahaa aabihii qoyskani uu la lahaa xiriir kooxaha maafiyada ee dalka Mexico sidoo kale wuxuu sheegay in Joseph maskaxda uu ka jirana iyo in dhexdooda ay haysteen dhibaatooyin qoys intaasi kadib eheladii qoyskii Magistay ayaa beeniyay gebi ahaanba dhaleecaymahaas sidoo kale waxay xaqiijiyeen in ay uga shakisan yihiin dilka qoyskii ninkan Charles Miret iyadoo ugu dambeynna baaritaano lagu bilaabay Charles Miret waxaana la cadeeyay in ninkani uu galay dambiyo hore kaas oo ay ugu dambeysay sanadii 2001 markaasna lagu eedeeyay inuu xaday qalab dhisme kaasi oo qiimihiisu dhammaa ku dhawaad $32,000 ugu dambeynna waxaa la soo qabtay Charles Miret iyadoo lagu helay cadeymo waaweyn oo ay ka mid yihiin in qaar ka mid ah farihiisii laga helay albaabka dambe ee gaadhigii qoyska sidoo kale waxaa la cadeeyay in Charles uu ku isticmaalay telefoonkiisa gacanta goobtii meydadka lagu aasay iyo goobtii gaadhiga la dhigayba kadib June 10keedii sanadii 2019 maxkamadda degmada San Bernardino ayaa Charles ku heshay in uu geystay dambiga ugu dambeyn January 22keedii sanadii 2020 Charles waxaa lagu xukumay xukun xabsi daa'im ah sababo la xiriira dilka Joseph Magistay sidoo kale xukun dil ah sababo la xiriira dilka hooyo iyo labadeedii caruur ahaa halkaasi ayuu ku eegyahay muuqaalkeena maanta fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe like waa noo muhiim waad mahadsan tahay